السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إن شاء الله تعالى ولا ليال صلاة عصر من تكني إن شاء الله صلاة عصر من ولا ليال تكني حرم كيبان جونا الحمد لله رب العالمين. شرقرية إن شاء الله شرقرية وأنا كده قبل القادة إن شاء الله من سوق لي وقت كان حلا يودن ما نسيحن لبي أردو إسكو ملك بك إن شاء الله خير الله كديكو شرقرية إن شاء الله ولا ليال ولا ليال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب أبو هريسة هذا وحي كذب وبلابننا إن شاء الله تعالى. waxaan sayidii sheegaya walaalayaal ilaahay waa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mar walbaba dadku hagardaamada iyo qurunka iyo fadeexada iyo waxay qofka la doonayaan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu siiyey waa kala jaad. ilaahay anaga alxamdulilah hidaayo uu siiyey hadda meeshaan kala hadlayo waa safo iyo marwa waad garanaysaa safo iyo marwa waa xaramki salaadii duhurkii baan ku tukaday casarkii baan ku tukaday bacda alcasar oo haddana soo galay xalay waqti dhammaan rabay inaan soo galo oo idin soo galo oo xaqiiqada jirta aan taabsiyo laakiin waqtigii baa aad wuxuu ahaa waqti walaalayaal wuxuu ahaa dambe ma cishidii baa soo gaaray yar saaxiibkay ayuu soo sheegay oo Puntland marka iga daaya please iga daaya wax yar inta ku jiro بريا يقداي بليز يقداي حيسوي عندنا انت وحير كجر وحير روي ان شاء الله تعالى marka walaalayaal waqti dambe xalay igu noqotay markii waqti dambe igu noqotay waxaan sir dadkii Soomaaliyeena kuma jiraan cid ku jirta ma jirto marka yaad u sheekaysaa yaad wax u sheegtaa ya maart marka insha Allah ta'ala xalay ma hurdoorayga soo dhicin ba ma ana seexan hurdoo ma baan lid walaalayaal waa bilaabanayna insha Allah ta'ala walaalayaal horta ilaahay xaq ahayna fahamsiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq ahayna fahamsiyo walaalayaal horta klibka la isla dhex wareegayo oo aad aragteen oo aad social media ku aragteen waa hooyaday dhashay waa sax waa xaqiiq waxa weeyaan hooyaday dhashay walaalayaal anigoo yar oo aanan ku bagaraasan ba aabahay dhintay markuu aabahay dhintay kadib reer abtigay waa reer koonfur galbeed adeeraday iyo eedooyinkay iyo wixii baa ila wareegay kadibna boosaaso iyo halkaas anigu reer boosaasaan ahay familigeygii iyo dadkayga kullu halkaas ay joogaan halkaasaan ku soo koray ku soo barbaaray magaaladaydii ah hooyaday hooyaday waqtiga iyo waayahana kala kaxay ceeb male dib male oo waxa weeyaan qofku haduu agoon noqdo oo qof yar iska yahay oo waqtigaasi uu saasi ay u dhacdo waxa jirta waqtigan ka soo kabanay oo ka soo weynaaday ayaan hooyaday soo raadiyay ana soo raadiyay hooyaday dhashay weey qof kasta hooyadii waa u jecel yahay waa soo raadiyay waxaan ima xamar tabtaan xamar iimaanayay waxay ahayd inaan hooyaday arko dinsoor baan ugu tagay meel yar been idin sheeg ma 2000 bay ahayd dawladda Cabdiqaasim Salaad Xasan waa soo baxay rafaadkaas soo maray iyadoo waliba dhulku uu rafaadsan yahay oo xaaladdu ay sida ka adag tahay ayaa halka u soo maray anoo wiil yar ah waxaan xusuustaa waxaan ugu tagay magaalada dinsoor baan hooyaday ugu tagay iyo adeerkay ninka qab walaalayaal hooyaday baan isu soo baranay waa u tagay alxamdulillah rabbil alamin waa hooyaday haddaan nolol fiican bay ku noolaayeen way fiicnaayeen
afar ciyaal ay haysatay laba wiil iyo laba gabdhood oo dhinaca aabaha ah waxa jirtay anigu waa ka soo noqday maadaama aan hooyaday bartay waan ka soo noqday waligay waan wada xiriir jiray imaaraadka anoo jooga anoo sidii kala ah anoo xumaantii iyo qurunkii iyo fuxshigii ku jira baan la soo xiriiri jiray hooyada oo lacag u soo diri jiray ilaahay waa iga saxiya ama xalaal aan ku soo helo ama xaraan aan ku soo helo hooyaday lacag waa u diri jiray subxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala been sheeg maayo oo xaramkii baan jooga walaalayaal wax kasta oo aan hooyaday u diro caqabad waxa ku noqday adeerka odaga adeerkayseen oo hooyaday la taagnaa waa adeerkay waxbaa na dhex maray ciyaalkaas aad waxa weeye walaalahay maanta isagana aabbu u yahay anigana waa walaalahay ma kala go'i karo laakiin waa nasiib darro nin weyn waa 70 jir waxaanu isku jiray waxay ahayd wax kale ma aysan ahayn hooyaday si fiican u dhaq iyo saan doonaan ka yeelaya waana sidaan doonaan ka yeelaya wax allaale iyo waxaad u soo dirtana waa cunaya hooyaday waxba ma qabsan karto madaxii buu ka waalay wuu wareeriyey siduu doonu u galay waa u tegey ugu dambayn Puntland baan keenay boosaasaan keenay 2 jeer carruurta macal waa soo kaxay 3 jeer baan keenay 3 jeer baan Puntland keenay oo reerkaygii baray oo familigaygii baray oo dadkii ugu yeer iyadoo xaaladdu isaas noo marayso oo la isbartay oo xaaladdu ay caadi yihiin ayaa walaalayaal waxa dhacday waanigii Dubai baan aaday Dubai waa wada xiriireynay hooyadu wax allaale iyo waxaan maartay kala qarsan jiray ma jirto hooyaday dib kasta ay ku jirto iyo xaalad kasta ay ku jirto xataa carruurta ay sheegtay wax allaale iyo waxa sameeyay waa garan waay ninkii maxaad ku samaysaa sideed yeeshaa maxaad yeeshaa walaalahay baanu tegey waxaan idhi walaalayaalo hooyaday hadda kan ugu yari waa 25 jir waxaan idhi walaalayaalo ilaahay baan idinku dhaariyey hooyadii ina dhashay anigu curadkiinni baan hooyadii idin dhashay oo anigana i dhashay oo hooyadeenna ahayd sidaan caqli maaha inaad ku shaqaysataan xataa iyaga carruurtooda uma shaqayso iyadaa shaqayso hooyaday baa shaqaysa xaram marka waxaan idhi waxaan sidaan xalmiya wayba ku rabaanba saasay u rabaanba inay sidaas noqoto bay rabaanba waanu adkaysan waay si kasta waan ka soo furfuri waay anigu inta badan dibadaha jiray lacag baan u soo diri jiray lacag allaale iyo lacagtaan u diro hooyaday waxay ii sheegtay hooyaday macaan wallaahi inaanan been idin sheegin masaajidkii ilaahay baan joogaa inaanan been idin sheegin oo waxba ku daray wax walba oo aan u sameeyo isagaa dhexda u taagan $1 kama uma reebo hooyaday maskaxiyan ayuu u waalay maskaxiyan buu u waalay akhiiran walaalayaal akhiiran baydhamaan tegey waaniga hawshaan ka baxay ilaahay iga macinay subxaanahu wa tacaala baydhabay hooyaday degantay baydhabaan tegey meesha kaamka ah meel fiican bay deganayd oo ka fiican oo ka habaysan waayahay halkaasaan ku dhaqaalayn jiray wax walba wuxuu u taagan yahay isaga u taagan jaad buu cunayaa waa nin weyn ma tukanayo ma soomayo 24 saac jaad iyo baalkii iyo tubaanku wadaa waxaan ku yidhi adeerow waa la hadlay waxaan ku yidhi adeerow sidaanu si maaha adduunyada waa laga tegayaa anigu waa toobadkeena oo anigii baa hadda hawl ku jiray baa ka toobadkeena adeerow adiguna toobadkeena ilaahay baa kugu dhaariyay toobadkeena adeerkay waa iga diin wuxuu yidhi adeer anigu waxayga aniga khaasta faraha ka qaad iska daado laguma dirsan hooyaday markaan aado hooyo waxaana maxay tahay sidaana maxay tahay noloshaana maxay tahay waxay igu tiraahdaa hooyo muslimka adduunka lagu imtixaamaa bay tahay hooyada waa qof dulqaad leh waxay tiri hooyo muslimka adduunka lagu imtixaamaa bay tahay walaalayaal iyadoo ay saas jirto ayaan wax kasta waa iskala si kasta 2 jeer 3 jeer baan baydhaba daraadeed u tegey mar waan soo kaxayay gurigaygaan keenay markaskaan keenay waa ila joogtay 8 bilood ba ila joogtay intaan xaramka soo jiray oo xajka soo jiray ayay kulligood la soo hadleen telefoon intii qabsadeen hooyo ma nancday annaga miyaad nancday carruurtaadii aaway dadkaagii aaway hadda ilmaha aad aragteen hooyadood way ka dhaqaaqday waxaa dhalay wiilkaas la sheegayo oo xanuunsan ma garateen
ولا ليالو إله بان إذن كداري أنت نكاسي دب إمري أنت رفاد إمري أنت عن هو يضي كلام مري إلهي وأوجيه سبحانه وتعالى إلهي وأوجيه سبحانه وتعالى وحكستا سكستا يالي حدداس وحوية وحكستا واسمي هربان قاري مركان كحيني حتى العقد بو يقاط هو يضي بو العقد يقاط رأيني إلى جبته وأنا هلك أوقد بي ولا ليالو إلهي بان كداري بل وحاس إله بان كداري ما وح لو دل قادن كرا ولا ليال marka hadalku ila tagin waa ila taraaraxay waxyaabo badan baa jira aan qaraayo ciil baa hoosta iga haya wallahi been idin bisheegayo hoosta ka gubanaya ciil baa haya waxa weeye waa liisibi ninkaasi soo door uga yaal ninkaasi odagaas adeerkay ah ilaahay ka baqi maayo waa nin weyn kabadhiisa xataa waxay tiri wallahi aabahay salaadii inuu tukado way iga diiday ninka noocaas reerkiisa iyo familigiisa baan isugu yaal bayda baan tagay reerkiisa iyo familigiisa oo dhan baan isugu yaal waxaan ninkan hooyaday ama nolol la saaro ama ana ka xisanayaa ilaahay baan ku dhaariyay waa ka xisanayaa ana ka xisanayaa baan ku yiri wuxuu yiri طلبوا ما فعلا أنا وهذا هو يدا عاصي كل غضب سيدا كل عيسى إن الحرم كيجو سيدا كل عيسى بالله عليك إيش هذا إذا كان ويدين يا صلاة على الحرم كيجو يلا يقبل يا دام هو يدا عاصي كل غضب وحكستان اسكتي ويجدي دي هو يدا أخيرا قبل ولا شيء waxaan hooyaday waxa ku dhacay ma sidee wax xaaladda iga war wallahi xaramka ilaahay baan joogaa waxa tiri axmedow hooyo adeer baa wuxuu qabtay beet maskaxdeeda adeer baa wuxuu qabtay aabahay baa wuxuu qabtay waa aabahay baa wuxuu qabtay beet masadaas aha lagama fujin karo si kasta hadaan yeelay wax kasta hadaan sameeyay nolol fiican bay ku nool ila joogto waxaan cunay ila cunays markiiska ila joogto dadkoo dhan baa ogaa reer markiis baa ogaa cid kasta way ogeen jiif iyo joog buudii caruurta ku soo diraa mar usagaa la soo hadla mar waa u soo hanjabaa mar wuxuu doonu soo shubaa waa nin weyn oo 70 jira inuu hooyaday ku tugsado buu rabaa waradeerow ilaahay ka baq waradeerow adduunka waa laga tegayaa waradeerow adduunku maalmo yar weey waradeerow abtiyaalow idinkuna nimanka kale toon la hadlayaa waxa weeye nimankii adeecada gaarsiiya nimanka la yiraahdo oo ka soo duubay abtiyaalo horta aniga igama xishoon abtiyaashii baati xasha wujud abtiyaashii baati reer koonfur galbeed siday u dhan yihiin waa reer koonfur galbeed waa abtiyaal ma iga xishoon weydeen abtiyaal ma ila soo xiriiri weydeen maana wax idin ka diiday abtiyaal bal inta sidaa samaynaysaan waxa samayseen hooyaday baad u tagteen ninkii aanu istagaal sanayn ee aanu isbahalkaysanayn baad intaad tagteen baad soo duubteen maba xuma waxaad ku soo larteen heesihii iyo qurunkii iyo balaayadii aan ilaahay uga toobad keenay sasarko baad ku soo darteen idinkoo ku raadinaya fayuus iyo kaalmo ku raadinaya war hooyaday kaalmo uma baahna kaalmo ilaahay bay u baahantay hooyaday anaa u nool wax walbana anaa u qabanaya hooyaday anaa u nool anaana wax walba u qabanaya kaliya iga garbax abtiyaalow iga garbaxa ilaah baan ku dhaariyay anigu dhir buntulaana baan tolkay iyo ehelkay khayr allah siiyo way garab taagay laakiin idinka waxaan idin sheegayaa hadday reer abtiyaashay baatihiin waxba idin oran maayo iga garbax abtiyaalow way dhabaan idinku imaanaya waa idin imaanaya iga garbax sidaas si ma hooyaday quraan baa saaray anaa soo kaxaysanay isiiya kali waxba idinka ma rabo wax kale to ahayd qabanine isiiya hooyaday igu soo wareejaya anaa weliga haysanaya anaa haddaan ka horeeyana iyadu hay aasto haddii ay iga horeysana anaa aasaya abtiyaalow iga xishooda abtiyaalow xeer muslimnimo kuma idin naasabay bini aadantinimo ma idin naasabay
قرتين هويا ذي ما كنتو سنيسان oo wax sileedin lacag halaydu ku siiyo abtiyaalo uga xishooda abtiyaalo reer koonfur galbeed baa la hadlaya gaarsiiya u sheega haddaa xishoonaysaan oo wax isku falaysaan oo dad islaamatiin iga qabta ninka iga qabta ninka iga qabta لا إله إلا الله محمد رسول الله والله waxaan tukaday garanay casar ma garanayo duhur ma garanayo ilaa xalay ma ana saac calool xumo war xagee lagu arkay $1 uma tiri karo hooyada $1 wallahi $1 maxaa ka yar heer waxaan gaaraa niraahdo hooyo soco 10 intaasoo telefoon baan u gaday telefoonadii isaga ka qaatay mid walba uu ka qaadanaya kaarku ka qaadanaya lacagtu ka shubanaya حتى هو يد موبايل كسر لا استعمال لعقت الله ولا يسلو كرم وقف إسكا مسكينة ضوا هو يد حتى نقول هذا سوى يقول شكيين والله دوبا يا ويل كاجي بالله دوبا أنا حلا هو يد والله وحيقول شكيين إني دوبا يا وأنا جاي صدر يا به هو يد السوشيال ميديا ما تقع السوشيال ميديا ما تقع وردول ميجو ما في عنا وردول ميجو هالإسكداي وردول ميجا سومالي ورس إلهي كبر ورأبتيالو نكا إيجا قبط أودغا ورأبتيالو ويوجيه ولبا غيركيسو ويوجيه تبرو كدش غيركيسو ويوجيه والله بالله تالله إيجا قبط أبتيالو وروح بيدن أوران ماي حمان إيجا المقور أبتيالي باتين إلهي بيدن كيكين دليل حمان بان ينقورا يا إلهي با إيجا دليل ربنت لان إيو ركوفر قلبات با إلهي يسوق كيدر واحد من مقابو لكن نرشة إيو الرفات إيو سلطة ويدا إنا بحد شان وحل قادم كربان ولا ليال تنكلو تاني شيء وحوي تنكلو تاني شيء وحوي ولا ليال أنا جو مالين جوجا حمر وأنا جو مش مركز كجوجا وحبرني أيا واحد عضي ويلك هذا اللي ليا وحنوسين ويلك حنون كلام ما هيو حبارك هو يأخذ عين حنون كلام يأخذ عين مش وحوي هو يكون أفعل جري markuu shaqaysto lacagta u diidi jiray suudonu ma garanaysa u socon jiray isheeda u baqda waxa dhacday walaalayaal iyadoo oo 6 ciyaal u dhalay isag waa wiilkaas aniga walaalkay oo u dhashay oo hadda leeyahay waxaan u sheegay oo aqalku ku 6 caruur ay u dhashay iyadoo wuxuu karinaysa oo jikadii ugu jirta oo gabdhihii xataa ay joogaan walaalahaya oo iyagu aysan waxba sameeyeen ayay waxay sameeyeen waxay sameeyeen buu intuu masaar soo qaatay masaar wallahi been meeyay sheegay xaramka ilaahay baan joogaa masaar intuu soo qaatay buu halka madaxa dhigta iyo halkaas oo ka garftay markaas waxay sameysay 5 qodob baa la tolay hooyaday oo dhig baxday baan xamar ka duulay bayda baan ugu tii wiilkii oo xiran baan u tii oo silsilada ku xiran hooyo maxaa ku dhacay seewa hooyo ninkaas ay dilay isaas dhacday dibka waxba uma arag calool hoos gubtay caloosh urka gubtay laana waxba ma sameyn karo Allah soo walaalayaal u daayay intaan hadlayo idaayay please intaan hadlayo idaayay walaalayaal hay soo wicin kadib soo khayr Allah idin walaalayaal xagee lagu arkay qof hooyadii soo korisay oo inta soo leekaysiisay oo caruurtiisi asaga u dhalay korinaysa inuu intuu masaar soo qaato madaxa ka dhufto xagee lagu arkay ilaahay baa idin ku dhaariyay isha Soomaaliya isha xagee ku artay wax ma dhaqan ba diin ba waxaas walaalayaal wallahi billahi inaana kelmad baan ka sheegay xaramkii baan joogaa ilaahay baan hortaaganahay wallahi inaana beeridi sheegay xalay maseexan laba doodi ka mask inta ma kala qaadin baanta wax Allah la xisbiya garan way si Allah la yusaado hadna garan way laakiin ninka ina Allah hadlo war dad kale inuu sheego war hooyaday oo saa u dilay oo saa u rafaadiyay oo aan baan ku xan ku iraadeero ku caliyo adeero xaaladaada wax ka bedel waayahay waa ka bedelaya mar walba kama bedelo kama soreeyo hadda indhihi buu ka jiray waa waayeen waa dhinka odaga caruurtii gabadhii ka tagtay wiilka way ka tagtay meel kale la joogtaa nin kale guursatay
gabadhii caruurtan dhashay hooyaday buu wuxuu uga dhigay hooyaday uu dusha ka saaray culis oo ku waalay oo madaxii ka hooyaday madaxa maskixiyan caadi ma usagaa sidaa ka dhigay wallaahi waa xanuunka isagu uu ku sameeyay waa walaalayaal anigu nin caasiba عاسنا هي لكن إن العاسي هي عاشا وجود سلام بس جدا بيسيبها كجرا والله جدا بيسيبها كجرا ولا ليا ها أبوا وحلا جحشود واي وحي سميين هربتك يقول سميين وحلا جحشود أنا جاي يسوي عم بيع وحي ويديا والمحاوي نكاس حدنا دمله أنا بينما وإيمانا يا إن شاء الله تعالى وإيمانية هوي إيمان دون إن شاء الله تعالى كل سوشيال سوق قاري ماي لكن وإيمان إن شاء الله تعالى هوي وأكو إيمانية تربتي هذا نوقف نقصنين تربتيو أنا جهدي أن كرت الرأي أو أرض لي يعني قالت كي هو أمر والله يجا كين قبنية إهل بالله كاربني بالله والله يجا كين قبنية إذن كان لكن بليز odagaas aad u jeedaan oo saay galay oo dagaalkuna dhex maray oo hooyaday soo door ka yeelay oo aad u arkay way kaana dar ka baqay wallahi walaalayaal ma garanayo waxaan ku hadlo ma garanayo san ku hadlo waxaan iraado ma garanayo hooyo qabaha hooyaday buu qabaa walaalayaal waa nin hooyaday qaba oo dhiigga halkaas uu ku qaba waa run haddana wuxuu rabaa inuu gaarsiiya aad bay ugu mahadsanyihiin wariyaal fara badan oo reer abtigaya oo soo wacay xal aad baan ugu mahadcelinaa bushra muhayb ninka la yaado bushra maxamed ninka la yaado dad badan oo bay soo wacay wariyaal waan xalay oo dhan la hadlay waan u mahadcelinaya reer abtigay hal qof haduu xumaaday dadkoo dhan inay wada xumaa laakiin waxaan rabaa dadka ayaga qabta islaamtihiina kala qabta qalad kaysaara hadduu isagu qalbiga hooyaday ana haysanaya faraha iga qaado intaas kaliya aan kala gaadhay laakiin hooyaday in lagu waxba ururinaya halkaas asaasa la yeelaya wax la aqbali karo ma marka insha Allah ta'ala walaalayaal waad maasantihiin إن شاء الله تعالى أنو كلب بان صور دقي دونا ودبين واكبحيا ولا لا واكبحيا مش